kuwan imika karka waa in la baxay ilaahay raadka ay wadaan iyo sharku leeyahay ay naga sarfiyo gaashaanka Allah inooga dhigo gaashaanka Allah inooga dhigo cidii hidaayada loo qorayna Allah soo hanuuniyo waxaan ka sii baxaynaa hoygii Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Xasan Tiirshe oo maanta uu inoogu sameeyay qada sharaf maadaama waftiga biri ay safar u yihiin magaalada Muqdisho waxaana booqasho ugu tagi doonaa caalimkii weynaa Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Abubakar oo da'diisu tahay 106 sano jir aynoo bilowday safarkii aan ku tagi lahayn tuulada Karabis oo qiyaastii 25 kiiloomitir u jirta caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa tuuladan iminka aan soo gaarnay waxaa lagu magacaabaa tuulada Karabsiyo qiyaastii 25 kiiloomitir ayay u jirtaa caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa halkan galabta waxaan u nimid inaan soo booqano oo aan soo siyaarano caalimka weyn Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Abubakar Warfaa علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله ليس أزكى منك أصلا قط يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما دون الدهور الله يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله ربي فرحمنا جميعا وامحو عنا سيئاتي ربي فرحمنا شيخة داديس وابقل إلى حسن جر waxa uu waqtigiisa ugu badnaa ku bixiyay faafinta diinta islaamka gaar ahaan akhrinta kitaabada iyo bixinta dariiqada qaadiriyada oo uu ka mid yahay Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Abubakar Warfaa waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa miyigeeda 1915 tuulada Xaraf Sheekha wuxuu halkaa ka bilaabay barashada Qur'aanka Kariimka ah kadib waxa uu cilmi u doontay kalbeedka sida caado u ahayd culimadii ka horeysay Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Abubakar waxa uu cilmiga diinta islaamka ka qaatay culimo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin Sheekh Cali Jawhar Boqorre oo uu ka bartay tafsiirka Qur'aanka Kariimka ah 2 Sheekh Maxamed oo Ciise Shirre waxa uu ka bartay cilmiga Carabiyada 3 fiqiga cilmul hadiiska waxa uu ka bartay Sheekh Faarax Umar Sheekh Cabdiqani Sheekh Maxamed Khaliif Sheekh Cabdiraxmaan Maxamuud Cigaal Sheekh Cabdulqaadir waxa uu dariiqada iyo ijaasada siiyay Sheekh Axmed Siraajuddin oo loo yaqaan Sheekh Axmed Abkaal oo isaguna ka mid ahaa qulufadii waaweyneed ee diinta iyo dariiqadaba ka qaatay Sheekh Maxamuud Yaasiin Macalin Cumar Sheekh Cabdulqaadir waxa uu kiciyay oo diinta baray xir badan isla markaana uu siiyay dariiqada qaadiriyada Sheekh Cabdulqaadir waxa uu maanta ku nool yahay tuulada Karabis ee ku taala koonfurta magaalada Hargeysa
Sheekh Cabdulqaadir waxa uu la kulmay culimo waaweyn oo ay ka mid ahaayeen Sheekh Cabdullaahi Qudubi, waxa uuna kula kulmay magaalada Qulunqul. waxaa kaloo ka mid ahaa raggii uu la kulmay Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Abubakar, Sheekh Nuux Furre, Sheekh Ibraahim Axmed Guuleed, Sheekh Maxamed Cengal, Sheekh Nuur Maxamed, Sheekh Cumar Basiiri. ugu dambeyn Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Abubakar ayaa la hadlay Shabakatul Mutaxaabun Fillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wa maghfiratuhu wa ridwaanuhu. booqashada waan guddoomay alxamdulilaahi rabbil caalamiin aniga oo hadli karaya oo ay soo gaadhay walaalaha dar ilaahay dalka fog uga yimid ee Muqdisho ee salaan iyo ixtiraam aanan u qalmin iyagu ii soo salaamay ee isiiyey. ilaahayna waxaan ka baryayaa iyagana inuu ka aqbalo. ahlu duruqna meel kastaba ha joogee waxaan leeyahay salaamullaahi tacaala wabarakaatuhu calaykum. korkiina allaha yeelo meel kasta axyaa iyo amwaad, khaas ahaan mushaayikhda waaweyn ee walaalaha ah diintii iyo dariiqadii khaaska ahayd baan ku walaalay. axbaabtan walaalahayna soo dirtay ee uu ka mid yahay Sheekh Cismaan Xidig. ilaahay waxaan baryayaa cizi iyo sharaf inuu usii kordhiyo. Amiin yaa Rabb. cizi iyo sharaf intii waddada ilaahay ku raacdana ilaahay uu ka aqbalo. inta waddada ilaahay ku raacdana ilaahay uu ka aqbalo oo aad iyo aad ilaahay kashfi raxmaaniya uu siiyo baan ilaahay baryayaa. waxaan xanuun baanu yar barakaysnahay, cod ma hayo, dabaad bacdigad hadalkiina waan ku xeeqayaa. intaa raalli ha laygaga ahaado. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. qaar ka mid a culimmadii galabta halkan ku soo booqatay shiiqa oo halkan ugu timid siyaaro iyo duco ayaa iyakuna galabta goobta ka hadlay. maanta waxaan soo booqanay sheekh ka mid ah awliyada ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwada maanta inoo jooga oo la yidhaahdo Sheekh Cabdulqaadir Abubakar. waa Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Abubakar oo da'diisa 106 sano noo lagu sheegay. waa 106 sano noo lagu sheegay. marka waxaad moodaa 70 jir baad moodaa ilaahay maaragtay cimrigiisa u barakeeyey. annaguna ilaahay waxaan ka baryaynaa sidaa inuu cimriga ilaahay inoogu barakeeyo, nuurkiisa iyo nafaxaadkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ina siiyo. magaalo wuxuu ku nool yahay sheekha Hargeysa u jirta ku dhowaad 30 kilomitir oo Garbiis la yiraahdo. maanta waxaan soo ziyaaranay oo soo booqanay Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Abubakar oo mucaamira oo sheekha maanta qaadiriyada wadanka ninka u weyn way sheekha dariiqada qaadiriyaad ee dawladda ku horeeyay Soomaaliland u daada weyn ayaan maanta soo booqanay. nasiib baan ku yeelanay alxamdulillah rabbil caalamiin. ziyaaradeena iyo araggeena arag dhaxad Allah ka dhigo, culimada safarkaana ijaaba Allah kala kulmiyo, sii jeedi soo jeed salaama. waxaan ku jirnay maalmahan dambe booqashada dadka saalixiinta ama nool ama dhinto wadankan jooga. waxaynu maanta joognaa oon soo booqanay soo ziyaaranay Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Abubakar oo sheekh caalim ah, caabid ah, ahlu sunna ah. sheekhan waa mucammar, waa culimada ku nool caalamka ee Soomaaliyeed ugu cumriga dheer ku jira 106 sano ayuu jiraa sida sheekha uu noo sheegay. Saadaam Cabdulla Siyaad, Shabakatul Mutaxaabun Fillaah, Somaliland.